wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qaybta afraad ee sheekadii filan waa hurre waa nin ciidanka bilayska ka tirsan wuxuu hurre qabaa sabaad walaasheed xaajiye barwaaqo iyadu waa islaan aad u kulul hurrena inta badan aad moodid inay hadallada ku kulkulayso hurre isagu waa nin khabiir ku ah dhinaca baaritaanka ciidanka booliskana muddo dheer ayuu ku jiray haddaba hurre waxaa ka yaabisay oo feker iyo walaac ku abuurtay gabadhan yara dumaashidiisa ee sabaada oo u arkay had iyo gooraale in xaalkeedu aanu caadi ahayn ويابني أرنتنا وارياب لو أما كاقوي نيو كبرنا محاكو دعيني بروبلم كان هيستا هيك هيستا وفكريسا وسلها الليسا عنتعوني ميسو حبر شاهدي ميسو وحخرسان ميسو بروجرام كده وخلدين يعني والله وآد بقياب يا أنتن أنا كنا waxay ugu furtay mushkilad sababta gabadh yar oo aad ugu uruuriso oo markasta aad ku mashquulsho waa fikir aad u wareersan weey wallahi ya buuyi aad baan uga xumaa wallahi inaan ku mashquulo dibkan haystaniyo wallahi ya banaan ilaa hadana kuma guulaysan inaan ogaado wax badan ka ogaado hurre arrintaasi aad iyo aad bay uga yaabisay waa khabiir dhinaca baaritaanka maadaama uu yahay hurre nin booliisa wuu dareemi karayaa gabadha halka laga haysto wallahi waa yaab markaan si kasta uga baarandegay fiiriyey meelo badan ka fiiriyey waxaan shakiigan jirin in gabadha jacayl hayo balse anigu ku degdegi maayo waxa ilaahay soo shacbaan laguma degdego sheegitaankooda hurre arrintaasi fajac iyo layaab bay ku abuurtay barwaaqo oo sabaad walaasheeda ayaa iyada laftigeedu xogaa uu dareen gabadha ka galo oo ay dareensatay barwaaqo waxay u timid hurre oo isla hadlaya kolleyba wallahi xaalku si un buu noqonayaa si un bay u dhacaysaa laakiin waa layaab wey wax lagu fikera wey hurre haye maxaad isula hadlaysaa maantana xaaji haye nabad wey laakiin sidan baad caadi ku tahay iska caadi weeye waa sheeko yar baan galay no problem taas waa la iska galaa caadi weeyaad weligaa taraba intaad faraha taagtaagto meel cidlaa fadhiisato sidee ku dhici kartaa ma caadi baad sidan ku tahay xaaji stage maxaad ka fikraysa ii sheeg bulaxa ku kulleeyay wallahi waxay wareeriyey wax kale maaha gabadhii sabaad ahayd wey oo sabaad maxaad ku aragtay waa la yaabanaya aawe xagee ka waran bal adigu ka waran xagee ku dambaysay dee annagaadna weydiinaysaa mooji meelay jirto anaaba ka yaaban qudhaydu maxaa isla kululaynaysaa iga waran gabadhii xagee jirtaa war cuntadii diiday oo seexan weyse oo wax ku dhaca mooji dee see loo hayaa idabdaray kollay bilowdaan u malaynayaa maxaa problem oo jira markaad kur gasho war wax laga xishoodo baa meelaha laga sheegaya waa maxay waxaas dee waxaan maqlay caashaq iyo qurun iyo waxbaa la sheegayay inan yar bay meelaha ay indhaha ku haysaa aysan ka harsan karin baan maqlay waa wax jira wey taa macquul waa suurtagal wey maxaa macquula ma waxaasaad jilcinaysaa aad leedahay waa caadi see ka yeelaa balada oo xalinteeda see u xalinayo waar xalkeeda anaa aqaana si kale ma lahan madaxaa laga xirayaa gurigaa lagu xayirayaa iskuul baana aadin meel kanaysa qabanaynin shaqadeeda anaa aqaana suurtagal maa de xaaji qofka maxbuus ma dambiila qofka waxbaa loo sheegaa si waxaa taa ka ron inaynu marka hore la talayno ila qofku qof weyn oo qaangaadha weye haddii markaa ayna ka diido tallaabadayna qaadayna markaasaa ka tashan lahay nin weyn baa tahay gabadha hadday berri halawdiyaa loo haystaa waa adiga jilcay muujinaya war gabadhan aanu xirno oo aanu ulayno asxaan ma lahan dhoocishii qofku waa qaangaadha ogow hadda ma in la caburiyo kuma fiicna adduunka hadda wuxuu maraya in wax laysu sheego oo wax laga dhaadhiciyo qofka adaa un mas-uuliyaddeeda qaadaya ha halawdo keligay ma qaaday laakin wana wixii aynu sida ugu macquulsan aynu uqabano wey gabadha aynu wax ugu sheegi karno kolley aniga waxaani marin jacayl iyo wiil xun bay rabtaa iyo meelay socsoconaysaa iyo wax qashina waxaas aniga ima maraan adeer
brofesor daahir isagu waa hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed brofesorku haddaba in badan waxa uu ku celceliyey in ardayda qaar ka midii ay jabiyaan shuruucda jaamacadda u degsan waxaa kaloo soo dhowaaday xilligii imtixaanada ardayay may maqlaysaan waxaa soo dhowaaday xilligii imtixaamka waxaa laydinka doonayaa inaad la timaadaan dadaal qofkaan dadaalina imtixaamku waa uu ku harayaa midda kale waxaa isoo gaaraya dhowaanahan oo dhegahayga aan ku maqlayaa in qaar wiilasha ka mid ahi ay wadaan gabdhaha geeyaanna qolalka ay inamadu degan yihiin arrintaasi qawaaniinta jaamacadda ayay wax u dhimaysaa mana aqbalayno gabdhuhu ma tegi karaan qolka inamaduna ma tegi karaan qolka gabdhaha sidaa daraaddeeda waxay isugu imaan karaan oo keliya galaaska layla caamir waa gabadhaad wada taqaaneen ee jinka ahayd layli inta badan magaalada ayay dhex wareegtaa iyada oo qof caadiya oo dadka kale aadan ka dhex garan karaynin waana gabadha ugu shiddada badan marka la eego caamir inta uu dhalay hal wiil mooye waa inanka ku nool deegaanka afgooye haddaba xaafaddan booliska waxa degan laba inan oo la kala yidhaha dabcasar iyo dibindaabiyo maanta ma joogo laakiin dabcasar isagu waa nin dhibaataynta dumarka ku caanbaxay waxaa la yidhi geelow soco maalintaad ciin daaqdo ayaa lagu yaabaa layla caamirna waa gabadhaad wada garanaysaan iyada oo magaalada maraysa ayaa dabcasar maagay tala maxaa dhacay allahayaay walla maanta mid sidka soo martada arki lahayda abo waa too jira waryaha walla day arfiirsa isu walaaqdo balaayaa ka dhacday waryaha ku yaala naagta wallahi ama yara tanoo kale lama naxariisto allayla tan waa inaan dhibkeeda kabteeda korugadiya ayalaya hoy day oo isu dhigtiraysa fiir hoy yaray هذا أسوق معنا كان أسوق قالينه لا يقول عليه وامح وحن عيال سوق هلا ورا يلا هلا صادق هذا أسوق قايمة بلا أسوق كذي لا أقول الله يا وهذا الكخصب مية هذه خصب لي أبريان قف هذا نقرنا نسوي له يسأل هذا أسكال هذا تيجي قفته هذيك أقول استحابة أنت كتير والله واقع حما أبو أنا أذاك لما الله هلا موقته هذيك والله يوا ما يكثر سو والله هو كحياتك ما بيقرن يسأل هذا الشيء ما الكلام واقع حما يا أعرف رتيل أسقالين محن قدرنا هذا محن قوق هذا يدرنده مساكين إلهي ذاته مسكين إلهي هذا قوته أبو مسكين إلهي وعيه ما لك أنا هذيك هذا طلع مكاسب إلا هذا هذا سس أبايا أيه وكل تاي أسقالين رتو كل شيء هذا باع كجلع سنة أرض جدك ترتيب أمره كلها هذا سقيب قيمة بلان هذا وباه حيران بدوبك خبرك كويس حنكو قدنا أنا كوك باهنا هاي صبر شو الله هاي عم بضيع هاي أو عرس باهنا غفي عن حدث مع سنه أنا جوا حبان كوش شيء وأنا كل طلنا يا ولي بقى قفك هدي أذن جرنين سيد ما بلوجود دقيقة سكداف أنا هدوان كاتجيا وأنا كل طلنا مركا عن دقاقه هيقدر بحلين أنت سوى طلع هذا بحلان هذا ما غلين يا ولي وانقول محاول سبب أنا كره والله ده كم الدنيا يعني مقصبة أخواني مليد وحنا مقرن أنا قصماها واي هاي نبدية واي بالمان سندي لا يبقى هم بس يدير ساي كاره هو يري كاره يا هذا اسمه قال بلاش خلينا كاره يعني كثير خوش يا هذا هرت عندها قطر فيه يجي جيد عندها وأديك ولي قف فرحان ما أركن مياه أنا هو وكريه بناها محا كل مقدار ديك بسم الله هيك هذا أنا أحكوش أنا قبرتشيني هاي وقت تلمي يري ولي جيدا قصة أنا واسم يسد ماني واسم كتير جني هذا عرفينها أنا هذا بجني هاسكسو دين مرتين أنا هذا ويل سوماليات ما دام أتهاي أو إنسي وقتها كان حريصنا أتحام بنكوفلا يبعتوا كل مرة لكن وكل شيء هذا بقى هيقدر بهل المرة هذا يقدر هذا شو إن هذا هرتو دين أفكو أركيسو عادي هاجتي لاجتي لغة فردان هاجتي هذا درت أهو كاهر ماي أنا
قصة بالآدم وهبة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ورواي سوق الشيء المحل روح إنا لله وإنا إليه ووري والعرارة ورنا عرواي sawirka uguma sheegin aniga wili oo caga dhigo guuxaadan ha ka dheeraan waa digniinta ugu dambeysay waan ka tagayaa haddii aan joogdaada dambe maqlo adiga waay ha ciao حتى joogdaada maqlo walaal ka haray bilaa tallah wallahi ma la mustaqbal ma gaara walaal ka yiri kaale hayga daba hadlan soo kuma dhihin ya miskiin ninkii dabca saraha wuxuu dumar dhibaba ma hadday gabadh jin u geysay oo maxaa ku dhacay waxa la yidhi geelo soco maalintaad ciin daaqdid ayaa lagu yaabaa dabca sir dhirbaaxa kulul ayaa ku dhacday oo dhulka ayuu kula dhacay wax yar kadib ayuuse soo hambaabiray oo ruux maxay ahayd jinni bay ahayd يا إليا لا إله إلا الله محمد رسول الله شنافتو وتكبحر بسم الله الرحمن الرحيم وريا محق إبر ور بسم الله ورنا تفحي ما خطر إنا لله وإنا راجعون متجني ما قورت رجال وحان صعوبة وتتيل ليشري جنبو مركل لعود بليستو وعرض شري وستيل ليشري جنبو وحليه الوها دمارك وكلا أو حمل هايله ورسي عمر روح ورسي لي قالاني يا أنتك بعدي ها ولا نقد ما لي قاعدين لكن أنا ما سكفيرني يعني ناقو حانا قد حي حرش أنا أوجا هي لو أنت بكلني مرة أنا وقتهاسي نعم وأنا مرة بسكوارتي حدي أنتك بعدي قادو وأنا سكلعيا لكن وين أركو مركا أنا أركو كعود بالليستا أتينا عود بالليستا وكعروي أنا على كلام سكبارة يقولوا ذي شيطانك وحي وطان هاي شيء هذا واي قاد ما تشركي هاي وعم بها اللغة يوكل واكد ما شاء الله ناس تنواوي قاعدين بدل ما يقعدون ناق بوري لا قرح بواسكي لان دولا انا اقول كان هاي لكن مرة ما دعي دونتو انا اقول هاي ناق دنبا ولا يمقعدو kuliyadda beeraha imtixaanadii ayaa soo dhawaaday kuliyadda beeruhu waxa ay ka mid tahay kuliyadaha hoostaga jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ardadana badanaaba imtixaamada laba qabayaan looga qaadaa marka hore waxa laga qaadaa imtixaan la yiraahdo iskrito ardaygii iskritada soo gudba ayaa markaa waxa laga qaadaa imtixaan la yiraahdo oral examination si kastaba ha noqotee imtixaamadii ayaa imika soo dhawaaday ardayduna waxay aad uga walaacsan yihiin oo ka walwalayaan imtixaanadan soo dhawaaday farxaan wuxuu ka mid yahay hadaba ardayda dhigata kuliyadda beeraha waxa la walwal weyn ku haya maadaama xilligii imtixaanku imika uu fooda ku soo hayo imtixaankiina waa uu soo dhow yahay maadooyinkiina ma aanan akhrisanin maalimaana waa jirnaa waanan dadaalaa oo kaalmaha ugu horreeyaan galaa kuliyadda beerahana iska dhib adag tahay marka loo fiiriyo kuliyadaha kale dhibaatooyin ayaa isa saaran maadooyinkiina waa biologigaaba ugu daran meelaan ka maro kaala sheeg beer iyo qodow beera maasha allah waa kuliyad fiican sidaan filaya dhibaatooyina isku koray dadka aan ka baqay waa laba qof inay kaalimo ay galaan horta dadka kale waan ka wanaagsanay laakiin waa kaalimaha ugu horreeya inaan raadiyaa weeyaan hadalka marka la isku soo duubo 1 iyo 2 waa ina raadiyaa salaamu calaykum farxaan waa ku salaam وعليكم السلام tahay maxaa kaligaa wadada isla hadlayay horniyo imtixaankii beeraha kuliyadii beeraha noo soo dhawaan iska adiga maalmahan waa jirnaayo maanan aadin meeshii marka duruustiya iska korkortay xogaa imtixaankan ka fikiro dhibaato kale ma jirto imtixaanka horta waa wax wanaagsan in laga fikiro waayo waa ayaha waxaad adiga aad qaran lahayd garto waa wax bari adiga ku anfacayo iska bulshada laakiin wax kale oo jiro macnaha problem ma jiro mayo intaas waxaanan ahayn oo fikira ma jiro waa la fiican yahay inta kale waa iska fiican tahay laakiin imtixaankaas yaraan xogaan isku mashquulinayo kaliya xogaa maadaama uu imtixaanadii soo dhow yihiin maalimahan aan iskoolka ka maqnaa aan xogaa duruustaan isku qaban qaabinay sidaan u soo urursan lahaayo maadooyinka biologiga wax igu adaga jiro inta kale hadii la fiiriyo waa ay fudud yihiin casharada jaamacadda wax ka sareeyo oo ka sii xageey ma jiro isha ma waa fiican inta kale waa fiican haddii adiga wax kugu qarsoon waa gaar horta arday baa tahay kowdhe ma waxaad igu ogtahay waxaa laga yaabaa inuu jacayl ku hayo jacayl maya jacayl waqtigiisa maanan gaarin allaha ay gaarsiiyo waqtigaas jacaylka qofka haya dhaayihiisa ayaa laga garanayaa xasmaad keentay jacayl baa kaa muuqda adiga hadda
maxaa wejiga muyga qoran yahay maya xoogaa calooshaada maaragtay waa walwalo hadalladaada ha iyo macnaa markaan may ka bix waxaas ka bixin waxaad moodaa inuu jacayl ku hayo hawaani waa jirnaa maalmaha madaxana iska xanuunay marka imtixaanadan ku mashquula maahe doono iyo bajaaq waqtigeeda Allah na gaarsiiyo markaan jaamacad dhameeyo iyo markaas Allah na gaarsiiyo taas way wanaagsan tahay hadduu Allah ku gaarsiiye balse wax kaloo jira ma jiraan miyaad may wax kaloo jira ma leh imtixaanadan waa iska adag yihiin marka loo fiiriyo kulliyadaha kale waa kuwa iska dhib badan ee dhibaatooyin kale ma jiraan saaxiib wax dhibaataa iminka waxaad sheegaysa jacaylka meesha kumaba jiro waa waqti kale Allah na gaarsiiyo inday karnaaye war farxaano ha baryahan jaamacaddii aan la foolay waaba laga waayay maxaa see wax u jiraan wax dhibaa xogaa xanuun iyo imtixaankan ku mashquulsanaaye lak bacda imtixaan waa isku imaanaynaa caweyska kabankeenina noo soo qaad meeshaan ku baashaalinaa bacda imtixaan iminka imtixaan isku mashquulinaynaa 2 isbuuc kadib baashaalkeena horaan kasii wadanaynaa oo la foole oo hadda imtixaanka maxaa dhigi doontaa adiga haddii lagu imtixaamo mataqaa jaamacadda hadda imtixaanka lagu soo hordhigo maxaa ugu jawaabi doontaa adiga Lamumba iyo 54 iyo Gardana wareegi jirtay niyo waa iska dadaala habeenkii aan wax akhristaay adiga waxay arki jirtay maqribkii habeenkii 6 saac wax akhristaa aniga habeenkii leedahay waxa ka dhigtaniyo nay dhaafniyo adiga niyo war maqribana da wareegay aragtid 4 saac wax akhristaa aniga niyo meesha adduunka waa la isku kala wadaa qiiq camal waay badda waa meeshaan dhageyso hadda caawa talaado waay discoteca waxa ka jira Lamumba 3 marka saako aadna noo sheeg bal warcaaw ma adeynaniyo caaw imtixaan iyo wax diyaaris iyo xogaa guri adeerkiina waa rabaa inaan soo salaamo ma gaaray kaas ma ka gaaray badal imtixaan Allah na gaarsiiyo markaasaan baashaalayna awti waaya kowdhe Allah ku fududeeyay ani kulli hadeertaan waxa isku diyaarinayaa caawa caweyska sidaan ku aadi lahaa badal imtixaan caweyska meeshii la foola imaanayna wixii aad soo heli kartid oo gabdha iyo soo sheekaysan oo sheekada noo macaamaato lacala imtixaanka hada ku baas dhageyso imtixaanka hada ku baastid maxaa noogu talagalaysaa oo baas wallahi maalinta caweyska ana isaarin habeenkaas ma ku casuumanay habeenkaas ana casuumantiin haduu alla yiraahdo waa dhamaat ogle jimcaale iyo cibaar waa 3 oday oo saaxiib ah inta badanna meelaha waxay isugu yimaadaan fadhi ku dirarada ama masaajidka ay aalaaba ku kulmaan laakiin 3 oday waa 3 nin oo sheekadu ay isugu baxdo cibaar wuu maqan yahay oo wuxuu gaaray afgooye waa nin beeraley ah carruur yarna uu leeyahay tacab ayuu imika ku jiraa waxa la joogaa xilligii roob da'aaga waxaan u anbabaxay sidii beerta uu u soo beeri lahaa guriga ogle waxaa hormara jidcadda weyn oo sodona ogle haddaba wuxuu go'aansaday in uu gooyo waddadaas ugu yaraan kala barkeed waxaanu waddadii ku gooyey oo markaa uu meesha ka qoday godad isagoo tiirar ka mudaya ayaa waxa meesha ugu yimid jimcaale maxaa dhacay war ogle war maxaa dhacay ma haddaad waxa keenta haddana inaad wax kale ka soo tagtay inaad waddooyinkii muslimka oo mari lahaa inaad goyso maxaa tiri wili dhagoolnimadu ma ku hayso jiglinimadan war waxaan ku yidhi waddada maxaad u goynaysa waddada maxaad u goysay waddada horta waa kuwa adiga intaanan ku jawaabin ku arki maayo soo dhawow soo dhawaan si fiican ku eege warka isii aniga jimcaale waaye jimcaale war jimcaalaba nabad ba ilaahay baa ku keenaya bal waran dhiblow aad tahay dhagoolanimaad ku darsatay intaanimaad ku darsatay haddana maye qorax baa jirto marka sidaasaan xoogaa aan gacanta indhaha u saaro oo aanan waxba u arkayn bal waran waxaaba ka yaalaaba waddadan aad goynaysaaba war ka yaalaaba muxuu yahay waddadan aad goynaysa yaa baabuurta meelay maraysa male awey waddadaad sheegaysaa tan jidkaan oo meeshan masjid baa dadka marmaro loogu talagalay maxaa baabuurta uga jaraysaa meeshaana wadda baabuur bardhig la waa reer baadiye haye bar meeshaana wadda baabuur ma aha maxay tahay dadka marmare ayaan dhaweyd ayaa baabuurtu nagu baratay marka ciyaalkay naga jiidayaana sidaasaan uga jaraya hasha oo baabuurta waxaaba u diiday inay xaafadda soo dhex galaan hadda meeshuma meel baabuur loogu talagalay horta maxaad niyow reer baadiye isaga dhigtaa baabuurta ka sokow gawaarida biyaha gaari dameerada biyaha halkay soo gelayaan hadda iyaga laftigooda soo taayira ma leh carruur bay naga jiidayaane war see way oogle yaaqe oogle see ilaahay kaa dhiga yaaqe
deriska hataa haddii meed oo galo meel laga bixinayo male see waaya mar lug baa lagu bixinay horta adigu horta niyow sidaaduma shida abuur baa tahay waa ku fahmi lahaye jimcaalow ayaa deeb aad horta u shaqaysaa adigu war aniga hay-adna uma shaqeeye ee waxyaabaha aad samaynayso ayaaba ka dari ah haddana jidgooyo ma keentay dariiq la sheegay ma naqat war anigu hadda jid ma goyne meeshaan waxaan ka baqay carruurta aniga kuwayga iyo kuwa deriska maaragtay in baabuurta naga jiidhaan ka baqaya marka adigu baabuur wadda malaad ka hadlaysahay carruur dhan oo waaweyn ayaa doonaysaa in baabuuru jiidho sow ma war horta hay-adeed u shaqaysaa adigu war aniga hay-adna uma shaqeeyo ee waxawaaye waxyaabaha aad deriska iyo maaragtay xuquuqul insaanka iyo bini-aadanimada aad ka gelayso ayaaba aniga aan la yaabanahay nin ciraaho nin weynaho yacni maaragtay gar qaadayo ayaa tahay waxyaabahanito yani inaad iska dhaaftayba aheed adiga dadka aad ka waani lahayd aad ilaahay baa og oon waa jimcaale horta waa kaa shekiye meeshaan maaragtay anigu hadda sandaqad yar baan horta ka dhisaya anigu sandaqadaasna waxaan uga dhisayaa si aan maaragtay baabuurtii aanay u soo marin marka waxa weeyaan horta anigu jimcaalow waa kaa shekiye horta anigu haye ninka hadda igula talinaya meeshaan baabuure ha marto carruurta baabuure ha jirto waxaad allaan kaa shakiye jimcaalow dhegayso maxaad carruur laysa maya aniga carruur ma laynin deriskii maxaa way gaari dameer xataa meelu kasoo gelay male baabuur meelu kasoo gelay male hadda calaa iyo xaal nin oday abaa tahay annakana derisaan nahay walaalaan nahay fuji yaaqay fuji bal isxaanakum fuji dariiqan fur maxaa tiri fur dariiqan war maxaa tirina meeshaan fur waa kana fur meelahan ma waddadaa la furayaa waddadan fur alla ilaahay taas waa calaacadiba ka soo baxeen waddadan fura horta kawdhe ciddii isku dayrana dagaalkaygay doonaya ogle maad ka daysi waddadaa la furi maayo waxaan ku yidhi adigu horta waxaad iiga warantaa ayaabahan suuqa xoogaa waxaad moodaa raashimadu inay kacsan yihiin sidee baa horta wax u jiraan raashinka raashinka waxa la waaye badeecadiisa nin kastaba badeecadiisa siduu doonuu ka yeelanayaa laakiin horta waxaan ku yidhi culammadana waxaan ka maqlayay ganacsiga diintu waxay u ogoshahay riix yar inay saartaan hasha oo maanta diintaaba lasoo niman hadda aan arko oo ganacsataa waxaa la yidhi nin walba waniga wax ma sheegi karaya nin walba wuxuu doono diinta wax ma taqaana anigu diinta waa garanaya si wanaagsan baan u garanaya alxamdulilah haddaaba diinta wax ka taqaanid nin fiicanaad tahay ma garatay adiga ganacsigaas intaanan gaarin jidkan aad gooyayso diinta ma qabtaa waay adiga horta jidka ya maraya dadku hadda waa kaasoo meeshaa dhinacaasaa banaan ay marayaan ayaa kaloo maraya waxaa gaari dameeradii usoo geli lahaa iyo guryaha haddii meed dhaco baabuurtii la saari lahaa meel laga saaraa male waa kan dhowr iyo 5 kiilo 4 kiilo aad maaragtay wararta anigu dad wax waa u ogolaa haye laakiin baabuur iyo baabuur dameer kuwaas dad maaha kuwaas maaragtay carruurtay naga laynayaan marka dhinaca diinta hayla aadin dhinaca ani waxba kama ogol haye marka waxa weeye in carruurta la jiiro raalli kamay miyay doonaysa carruurtaada in baabuur jiro waaya haye ganacsatadan iyo raashinkan haddana maxaa kusoo geliya maxaa kartaa hadda maya waxaan la yaabay maalina weyd masaajidka horta maalinabaduba nala joogta masaajidka markii shiiku lahaa culammada waxaa loo ogol yahay nimanka ganacsatada ribix yar inay raashinka ku darsadaan war iska aamus meesha ninkii loor beriisa keena 50 kun hadduu ku soo gaday 400 kun buu kusii iibsanaya wixiis asma iskalo hadduu leeyahay aakhiro sidee loo xisaabinaya ninka caynkaasa waxa waay see la yeelahay adiga waxa waay oglow dadkaasoo kale inaa laga shaqeeyaa la rabaa adigana dariiqaad gooyowaysaa dadkaasoo kale oo yacni saas sid bursiga qaadanayo ee masaakiinta dhiigoodii jaqaayo ee beriis dhacay sokor waxa ma aragtay wax kastoo dhacay caano dhacay sharaab dhacay kulli keenayo dadkaas inaad ka hadashaa la rabaya ogliya war jimcaale waxa weeye anigu horta nin ganacsada war wa ora lahaa laakiin horta gurigiisa siyaad ku tegaysaa ciidan baa ka sokeeye maya baqaaradaa loogu tegaa baqaaradan hadda waxaa taalla tiknikada ataalla caano dhacyaa yaal saliid dhacdayaa taalla haye oo dibadaha laga keeno yaa dhacayna yaa wax laga dhacay maya muxuu ahay aan la cuni karno yacni wadamadii lahayba wadamadii soo saarayba ay soo naceen reerad ma qabiilla wax kala dhacay maya war iwad marka adaaba sheekay haye qabiil jeclaa war qabiil goormay wax kala dhaceenna لا إله إلا ورقبيل كم ورير الواح ما كجران لا حول ولا قوة إلا ما كجران الرير الواح ور هذين الرير الواحد نكتك قال إيه قبيل يدعي يدقال أقبل قال هذا وحنا لك لنا عدد أي شيء وروح هواي راشنكي راشنكي أيا محوقة هاي النقضي راشن أن العوني كرين
oo maxaa ku dhacayna yaa maxaa ku dhacay waxaa ku dhacay waa hallaabay waa dhacay xaguu ka soo dhacay meel sare u saarnaa laa xawla walaa quwata maya raashinka raashin dhacay buu ahaa oo dibadahaas kusoo baarayoo yani cidina aan gadanayno yani waktigooda dhamaaday raashin waktigiisa dhamaaday wax muddo meel ku xeraysnaaday noo soo gureen ha oo raashin waktigiisa dhamaaday xeradiin baaday kuwa keenaaba ka daran raashinka raashin waktigiisa dhamaaday caana waktigooda dhamaaday haye sokor waktigeeda dhamaatay haye muxuu ahaye sharaab waktigiisa dhamaaday nanac iyo shukulaato iyo waxyaaba waktigooda dhamaaday ayay noo soo xareeyaan ay noo keenaan ay yani nooga gadaan qaali oo xaggaasna markabkii 3 meelood 2 meel sabiidillaha lagu soo siiyaa 1 meel ay waxay ku soo qaadayaan lacag yar oo kaash ah oo anigu xaban maqal xitaa qashanaha nooga fogeeya in la yiraahdo maqal dadka halka laga warta wax la yaabay waxyaaba asaga mid ah haddii meel weyd waad naga maqleen garan maayo meelad aaday u sheekhu ka sheekeynayay arrimaha caynkaas niyow ganacsatada noocaas sidee baanu ka yeelnaa waxa waaye waxaan ka yeelaynaa horta annanka dabaaliin ah waxaan dabaal ku nahay horta yani warshado baasta waan leenahay xitaa kuwa dawadu waa ku jiraan hadday hadda waa ku jiraan kuwa dawada dhacday dawada ugu daran ba aniga maalin dhexdaasa kaniin sanboor baan soo iibsaday xoogaa sanboor xun baan leeyahay adiga ka muuqataa niyo maalin kasta waxaan ku yidhi diracdii dhaweyta hindhisadaan bilaabay ilaa iminka way haysaa haye waad ka qaadan waa dirac ka dirac 3 bilood baan maraya haye 3 bilood baan iminka hindhisay haysaa haye ninkii iga iibiyaa maqan maahaane hadduu yimaado alla ilaahay labadayada mid baa maqan soo farmashig mataqaanido farmashigii waa garanayaa horta waa suurtagal inaana garanna laakiin ninkii baan bar garanayaa haddaan arko farmashi weyn aad ka siweysid ka samiya labadayada mid baa maqan baan ku ilaani isaga dhegayso farmashi oo weyn ee qol ee meel ku yaal aad ka siweysid ya ninkan bar garanaya hal nin oo meel wax gadaayo meeqa nin gadayso 10 nin 8 nin guud horta aan ku sheegay jibcaaw adigu soo bela abuur baatay war baladkan maanta hadii aad caaw xaafadaad u hooyato oo seexatay subax haddaad soo kacdid aqal meel u sii jeedood ogeyd waxaad arkaysaa iyadoo irid kale loo sameeyo tii hore la xiray dhegayso marka dhibkaasa beledkan yaale dhegayso marka saasaana ku kala adiga xaasi caruur ma leedahay waa joogaan maxay u joogi waayeen waxaan wadada u gooyaba soo ciyaalka maaha oo ismali baabuurtu iyo kaa jeedin oo waqtigan al'aanadan wax ma dhaloosa adiga oo saan lowlow u tahay dhoola u tahay dhagoola u tahay dhiblo u tahay halaya waxaan ku yiri adigu sanadkee dhalatay aniga aniga sanadkaan dhashi waa la yaqaanaa aniga waxa waaye inaan ugu yaraan 40 go'aan kaa yaraha aniga meeqaa jirtaa horta ma garatay meeqaa jirtaa bota aniga waxaan jiraa muxuu ahay soo konton sano miyaa jirtaa waxaad 2 sano inaad iga weyn الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأنا لما سنة وأفرت إسداد سنة بإجرتها أفرت يسداد سنة أيان شراه هشا qaybtii afraad ee sheekadii filan waa dhegaystayaal intaa haynoo joogto